waddankaagu waa turaadta aad ka astaysan tahay ee aadam aabahayna laga aawmay waa dhulka hooye aad ku baratay afka hooyo waa halka aad ku dhalatay ee aad ku dhaqantay ruuxu dhul shisheeye ku dhashayna waa halka uu ku dhaato geedi iyo nagaashaba waa taxala xiriirsan oo jiilba jiil kale ka dhaxlo si kooban haddaan u tilmaamana waddankaagu waa sawraca ku dhaada carada ka abuuran oo aan hadlayn haddii waddankaagu qiimahaas joogo muwaadinka wanaagsanna waxaa tusaale u ah barbaarta dhexda u xidhay inay dalkooda silqaan dib u dhistaan barbaarta qoraxda kulul iyo shaqada adag midna kooda aanu u lootamin haddaad ogaan lahaydeen si kastoo laguu xurmeeyo si kastoo wax lagaaga dhigo waddankaaga wax kuu dhaama male waddankaagaad ku tahay qof waddankaagaad waxaad ku tahay human being qof yani bini aadan aad ku tahay haddii waddankaagu qiimahaas joogo muwaadinka wanaagsanna waxaa tusaale u ah barbaarta dhexda u xidhay inay dalkooda silqaan dib u dhistaan barbaarta qoraxda kulul iyo shaqada adag midna kooda aanu u lootamin muqdisho waa caasimaddii dalkeena hooyo waana hooyadii ummadda Soomaaliyeed muqdisho way dhismaysaa iskuullada iyo jaamacadahuna way ku soo badanayaan warbixinta maanta waxaan kaga hadli doonaa muqdisho الله أكبر الله أكبر magaaladii magaalooyinka xarun siyaasadeedii Soomaaliyeed ee xamar waxa dul heebaabaya soo shimbir maaha shimbirahuna nabadda astaantoodii soo maaha isla shimbiraha waxa dul heebaabaya shimbir caag ah oo aragti dheer oo deeqsinimo muuqaalka nagu soo gaarsiiyay waa huban in ilmugeed markaad ku dhugato caasimaddii dalkaaga oo nabad ah inaad ku indhodoogsanaysid muqdisho soo maaha magaalada hal jiha mooye saddexda kale baadiyada hindiya quruxdeeda ay ku bisho kamida magaalooyinka meelaha qiimaha u yeela ama quruxdooda wax taarta xeebta iyo dhulka badda markay u dhowda ay saaranta yani waxa la yiraahdaa buug taariikhda marka aad akhriso waxa la yiraahdaa aruusul bahr hindi baa la oran jiray aroosadii badda hindiya ayaa muqdisho la oran jiray qofka aroos uu qurux badan yahay Soomaha saas loo marka wadamo waxa loo eegayaa xeebta ayaa loo eegayaa marka magaca loo bixinayo ilaa Bambaaso iyo dhulkan oo idil baa loo eegay waxyaabahan baa loo eesay Sibaari wadamadan xeebta ku yaalo dhan ayaa loo eegay aynu markaan soo qaadanno goobihii taariikhda ah ee magaalada muqdisho si aan taas u sifeyno aan soo guriga salaamada guriga hooyooyinka aan sare u qaadno oo aan u baahno safiinta sare aqalkaas oo aan saafno suurad maxskadeedka qadiimiga ee goobahaasi ay leeyihiin eebas fiyoore weeye halkaasi waa hooygii fanaaniinta waa beri goorya ayaanba ay ku farxi jireen hidiyo dhaqanka Soomaalidu ay leedahay sii socod halkanina waa qalfooftii mafqadkii qaranka ka soo horjeedkiisana waxaa ka qabanaya maktabadii qaranka oo qaaban bartankeedina waxaa ku yaal taaladii xaabataako oo tabaalaysan sii socod oo tugta hore ku sii qaad hadhaafin xaruntii murtida iyo madadaalada oo ma moodaa in tiyaatarkan uu ka ashkatoonayo garaafaha saaran gabilkiisa hadii waa waxaan lahaa tiyaatarka qaranku soo waayo iyo waxtarkiisa ummadda oo dib u xasuusiyeen soo markalena hadii la dayactirana wacdaraha oo dheer lahaa muusan wariyeen
dhambaalkiisa tiyaatarkana waxaa naga dhaganuucsaday bulshooyinta dhawaaqdan ku maqashiiyey abwaan guure. hal abuurka goob lagu liso gaaxda lagu maalo golihii waxaan ahay murtida gaawaha u siday garaafada haddii layga tiro saaran gibilkayga gurmad qaranna aan helo waa gudla lahay biladaa guddoonsii lahay maamulaha guude geeshka ciidankeennuna gadaal sooma eegeen guubaabadaydaa kicin lahayd gaarhayoo idile geyigeenna cadow soo galaa nama gumaadeene sidii garac shisheeyaa ilmuhu naguma giirteene gurbood mari habawsani risaas naguma gaadeene naftoodana ma gooyeen dadkana may galaafteene nacabkuna garnayl kama dhigteen waalidkood gube maankoodaan garawsii lahaa waxaan gudboonayne kadiisaan isugu geyi lahaayey aqoon gabine bulshadaan gardaadsii lahaa goor iyo ayaane waxba hadalkuyow ila gudbina waxaan ku soo gaabshay guudka ugu sarreeyiyo madaxda talada loo goyda golayaasha qarankiyo intuu gubaya muuqaygu ganacsada waxaysiiyo intii garasho dhiifoon leh guud ahaan dadweynaha intii gacala ii haysa gaarsii waxay ii galaan waa u gudayahay. Stadium Muqdisho waa goob caynkee ah. Stadium Muqdishona waa dhalinyaradii tilmaan dhalinyaro weey waa meelihii ciyaaraha iyadana lagu hormarinayay weey noocyadoodii kala duwanaa haday tahay kubadda cagta haday tahay kubadda laliska haday tahay kubadda kolayga haday tahay dabaashi haday tahay orodadii haday tahay bootintii wax alle iyo wixii dhalinyaro iyo waranganidii iyo wixii oo dhan haday tahay wixii dhalinyaro ciyaaro noocyadooda kala duwan la sameyn lahaa meeshii lagu sameyn layay istaanta oo ay beed markaad eegto labadoodii haddii dhalinyaradii iyo dhaqankiiba la hayo meel lagu soo bandhigo lagu hormariyo ay muuqato waxaa markaa kuu muuqda bulshadii inay dib u soo noolaanayso isdhexgalka dib u soo noqonayo nabadii dib u soo dhalanayso yacni waxyaabo badan oo bulshada markii hore kala irdheeyay ama kala fogeeyay meesha ay ka baxayaan. iyo taalooyinkii wadanka shantii taalo ee astaanta u ahayd taalooyinkii magaalada caasimadda ah xaawataako axmed gureey sayid maxamed cabdulla xasan dhagax tuur iyo daljirka dahsoon oo gabigood la raba in la cusboonaysiiyo siday ahaan jireen iyo midabkay lahaan jireen loo yeelo astaamihii kor ka saarnaan jirana lagu soo celiyo. markane oo kale isweydiintu waxay tahay dib u tuska taalooyinka muhiimad intee leeg ay qaranka ugu fadhiyaan asalkeedana taalo maxay u taagan tahay. umuurtaasi waxaan hor dhignay gudoomiyaha akadeemiyadda cilmiga iyo fanka soogaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen. taalooyinku iyo masaajidda qadiimka aba waxa la isku yiraahdaa meelaha taariikhiga goobaha taariikhiga ayaa la isku yiraahdaa. taalooyinku magaaladu waxay bilix ka qaadan karaan kaalin weyn bay ku leeyihiin maxaa yeelay magaalooyinka taalooyin kale way ka xadaarad iyo ilbaxnimo fog yihiin kuwa aan taalooyinka lahayn dalxiisayaashuna way ka jecel yihiin magaalo ahaanna dhismaheeda iyo quruxdeeda marka la doonayo in wax laga qoro ama sawirro laga qaadana way ka soo bixi og tahay kuwa kale way ka duwan tahay. aan tusaale u soo qaadanno taalada dhagaxtood kadibna aan isweydiino ujeeddada ay taaladan bulshada u leedahay. taalada dhagaxtood sida sayidkoo kale qof magacii ma saarnayn. Soomaalidu waxay oran jireen Maxamed Soomaali ninkii saarnaan jiray waxa la oran jiray hadda ma saarna Maxamed Soomaali baa la oran jiray. Maxamed Soomaali waxa la oran jiray Soomaali Maxamed baa la dhahaa marka dadka si guud iskaga hadlayo. Soomaali oo dhan tusaale u ahaa waxay u taagan tahay taalada dagaalkii dhagaxtuur
sideed iyo afartanki ilaa 49 dhacay ee Soomaalida lagu dooransiin lagu kala dooransiin ma xornimo la insiya masalada ma sii ee qoladii qaramada midoobay xoogaalnimo ay u keentay wadanka dagaalka halka ka dhacay ee Talyaaniga markaa xilliga joogay dadkii Soomaaliyeed ee hubka aanaysan dhagaxa ku dagaalamay ay ku dagaalameen goobtaas laga dhisay taalada dhagax tuur baa loo bixiyay waxay xusuus u tahay dagaalkii maalinta dhacay waxay xusuus u tahay maalinta inay qaatay qaramada midoobay go'aan in Soomaaliya xornimo la siiyo inkastoo muddo dheer oo dayac qabay golaha murtida iyo madadaaladu haddana bulshada sinaba uma hilmaamin doorkii muddaga lahaa ee tiyaatarku kaga jiray wacyigelinta iyo xasiloonida dalka sooyaalkiisa oo kooban mar kale maaxa inoo dulmaro dhismihiis wuxuu bilowday horta 1966 waxa la dhameystiray 1968 ama 68 ka hor waxaa jiri jiray tiyaatar Aduna tiyaatar la yiraahdo ee meesha ay degan yihiin Ex Fiore ayuu ku wali jiray intaan isaga la dhisin markii xornimada la qaatay ee baahidii dhaqankii iyo afkii iyo fankii iyo suugaantii ay kobceen ay koreen ayaa waxa loo baahday marka tiyaatar weyn oo dadku isku wareystaan oo fanka iyo hibadii umadu ay lahayd lagu soo bandhigo marka taariikhda tiyaatarka waka waxyaabaha lagu qabto waxa kamid ahaan jiray riwaayadaha lagu soo bandhigi jiray heesaha lagu sameyn jiray xafladaha iyo munaasabadaha lagu qaban jiray heesaha hirgalo tartamada lagu qaban jiray iyo siyaabo kale oo loo isticmaali jiray sida kadiska iyo munaasabado kale lagu qaban jiray baa lagu qaban jiray marka tiyaatarku ilaa xilliga ayuu soo socday aad iyo aad buuna kaalin weyn ugu lahaa wacyigelinta iyo horumarinta afka iyo suugaanta umadu ay leedahay ama ay lahayd kaalin mug leh ayuu ku lahaa oo waxaad is leedahay maxaa yeelay waxa ku xiraa meesha wixii heesayay fanaaniinaha wixii wax curinayay abwaana aha wixii ciyaarihii hidaha dhaqanka sameyn jiray hiday dhaqan ciyaar haday ta nooc walba ciyaari jiray wixii kale qalabka musicianka tumi jiray iyo kuwii kale hibada gaarka lahaayee majaajilada iyo ka qoslinta dadka kaalinta ku lahaa qarnigan gumaysigii jabhaba qasayeen oo kasto gumaysi ha ku quusto qisadan murtida abwaanada horseed ee 77 bal maqal hadaba majaajiladii haye abaar haysto qof noolo oogadiisa cunayo hadii uu ka yiraahdana awoodii u xanaaqo anigu waan jidhidhconaya adiguna waad la jidhidhcontan dahayeesho waxa weeyaan golaha murtida iyo madadaalada national theaterka miyaan dhahda adaa garan doona si aan wax badan uga ogaano wax soo saarkii tiyaatarka aan booqano kaydka hadalka ee raadiyo Muqdisho halkaasi waxa lagu keediyay suugaan iyo sooyaal tirabeel ah waxa la aasaasay 1951 sarkaalka Abshir Xaashi ayaana kaydkaasi ummadda u badbaadiyay dhawaana waxa balgur dartii madaxweyne Farmaajo oo u dalaasiyay gaashan la sare isweydiinta biyo kama dhabacankana waxay tahay kol hadii dib loo dhisayo madxafkii qaranka maktabadii qaranka iyo tiyaatarkii qarankaba dib ma loo ururin karaa murtidii iyo murtiyaankii Soomaaliyeed ee kaalinta buuxin lahaa nosbiyaadka u qorxan runtii maxaa yeelay maskaxdii iyo caqligii iyo curintii iyo hal abuurnimadii iyo kartidii dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee dhanka suugaanta maanta way joogtaa barina way joogaysaa kaliya waxay u baahan tahay in la kala hufo la kala shaandeeyo la kala xulo dadna loo xulo inay doorkan qaadan karaan dadna laga xusho oo iyaga la yiraahdo yani la kala hormariyo dadka la kala dameysiyo tiyaatarka oo la helaa waxay ka dhigan tahay waa kale oo soo baxay fanka Soomaaliyeed hadii sanad waa ka daayo nalba amali bacay dibalo noqonaya dib baa loo noqonayaa weeraasi waxay xasuusinaysaa Faadimo Nakaruuma fanaanada ka dhabaysa hadal heeskiina kuna guriyo noqotay gurkeeda xoodo ee Soomaaliya birmadka ku yimid oo ayaga laftigooda dib baa loo noqonayaa maxaa jira dalkaaga wax u dhaamo male haddaad ogaan lahaydeen si kastoo lagu xurmeeyo si kastoo wax lagaaga dhigo wadankaaga wax u dhaamo male wadankaaga ku tahay qof wadankaaga waxaad ku tahay human being qof yaani bini aadan aad ku tahay
marka heesaas markii dadkii i weydiiyeen oo laigu yiri maxaan samaynaa waan tanoo waan soo noqonay hees labaad ayaan ku bedelay oo la yiraahdo horaa loo soconaya runtii iyo gabagabadii maanta oo la joogo caasimadii dalka dhinac kasta oo aad eegtana waxaa ka soconaya horumar dhaxal leh oo la taaban karo barnaamijkanna waxaan ku soo koobnay horumarka ka socda caasimadda waxaa lagama maarmaan ah in Soomaalida dal iyo dibadba ay gacmaha isqabsadaan oo ay ka qayb qaataan barnaamijka dib loogu dhisayo magaalada Muqdisho dalkayagii dowladnimo ku soo celi duqaydii wax kaladkii markay beelad hiriiraan dabka kuwii baktiin jiray waxay daba socdaanoo dirbaankaayii tumayaan duqufiyo niliito uu shisheeya soo diray miduu diray mid kale uu soo diray kuwkaasi sii diray intaasoo istabataal oy diibna dheer tahay ka soo doogsan weynaye rabbiyow dunuubtiyo dembiyaday falayaan noogu doori khayro qalbigooda daawee